بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. داوديال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواده حلقة لحاد برنامج كيني إنه كجهل ليني عالم إنه قرصون حقيقة، وعالم كسحرك وعالم كشينك وعالم كشياطينك وعالم كإيشا وحيالا عالم دنويان marka caalam kale insha Allah taala wadnay xalqadahan ba xalqadii lixaad aynu ka maraynaa dariiqadii waxaynu maraynaa labaad cilaaqadii ka dhaxaysay sidee mucaamaloonayaan jinka iyo maartay saaxirka iyo wax weeye waa jinka madaxdooda saaxirka waxa laga dalbanayaa saaxirkii qofkii baa u imanaya waxba ka dalbanaya waxa ii sameeyaa buu oranaya dabeetana saaxirkii wuxuu la xiriirayaa ninkii haystay odaygii jinka odaygoodii ama shayaatiinta odaygoodii ninkaasi talabaad buu leeyahay. talabaadka wuxuu oranayaa masalan waxaan u baahanahay shimbir, waxaynu u baahanahay xayawaan ama digaagad ama xamaamad awsaaf mucayana sidaa u eeg kalarkaa leh kan caynka leh siduu jinkaasi u dalbado. inta badanna madow kalarka madowga jecel yihiin ay dalbanayaan, waayo jinku waxay jecel yihiin madowga. nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix muslim alkalbu alaswad shaytaan, eyga madoobi waa shaydaan ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam. culamada waxaa aqoonta walena waxay sheegeen intaasoo jeer in jinku uu ictiraafay in ayda qeyb badani ay shayaatiin yihiin. dabeetana shimbirtiibaa ay dadkii ka dalbanayaan shimbir noocaasa keen ama digaagad noocaasa keen. shimbirtiibaa la qalaya, saaxirkii baa qalaya, magaca ilaahay subxaana watacaala ku akhriyi maayo, waxay bir naafku gashanaysaa ilaahay u xusin. dabeetana waxaa ka mid xaaladku dariiqadii qalitaanka ama dabxiga weeyaan. dhiiggii qofkii xanuunsanayay ayaa dhiiggii meydkii la qalay ama xoolihii la qalay ayaa la marinaya. meydkana waxaa lagu tuuraya kharabaadka ama meelaha gudaafadaha meel kamid ayaa lagu tuuraya, ama ceel aanay cidi agdeganeyn baa lagu tuuraya, oo inta badan ay tahay meelaha jinku ay degaan. magaca ilaahay subxaanahu watacaala marka ceelka lagu tuurayo ama kharaabad ama xashiish meel lagu tuurayo waxa weeye magaca ilaahay subxaanahu watacaala la xusi maayo. dabeetana saaxirkii gurigiisiibuu kusoo noqonayaa, waxyaalo shirkiyuu akhriyayaa, dabeetana jinka ayuu ku amraya waxyaaluu doonaya. wax weeyaan qolaa u timid waxay ku tiri waxaan doonaysaa qofka noo sixirto, waxaa noo samayso, labadaa kala dirto, labadaa isku dirto, labadaa isjeclaysiiso. waxa weeyaan wuxuu la hadlayaa odaygii shaydaankiisa weynaa, wuxuu leeyahay qoladaas doonaysaa hawshaa loo qabto. waxyaalihii uu ku gaalo oo uu sheegay waxaad keentaan caynkaa, maalan waxaad digaagad baad keenaysaan ama diig baad keenaysaan kalarkiisu caynkaa yahay inta badan madow ama waxaasaa keenaysaan, wixiiba ayaad soo adqalaysaan magaca ilaahay ku akhriyayn. dabeetna marka dambena milhibla ayaa ku tuuraysaan. wuu qalayaa isagoo magaca ilaahay xusin, dhiiggiibuu ka qaadayaa, dhiiggiibuu meydkii marinaya ama dhiiggiibuu dhinac dhigayaa, meydkiina wuu qaadayaa, meel buu ku tuuraya. ma ku tuuray arrintaasi ama meelihii ay degeen jinku ha noqoto ama ceel laga guuray ha noqoto ama meel xabaalo agteeda ha noqoto, ma ku tuuray gurigiibuu ku noqonayaa. buugii wuxuu soo qaadaya waxyaalihii ilaahay lagaga fogaanaya shirkigii ayuu la imanaya. mar shirkii buu la yimid oo ilaahay magaciisa isagoon xusin buu wax qalay, mar gurigiisii buu tegay oo waxyaalihii shirkigaa buu akhriyey, mar shaydaatiinta kii ugu waaweynaa buu la xidhiiray waxyaaluhu u baahnay uu doonayay uu ka aqbalay u qaatay. dabeetana markaa waxaa imanaysa marba hadduu isagu qeybtiisii ka soo baxay in jinkii loo sakhiray ee u shaqaynayay uu ku yidhahdo waxaa iyo waxaa iyo waxaa soo qabo, saasuu jinku ku caawinaya. dariiqadan maxaa dhibaatadeedu tahay? kow, jinkii baa wax loo qalay, arrintaasna waa muxaram. culamaduna waxay isku raacday inaan la ogolayn inay xaaraan tahay jinka in loo qalo, ay shirik tahay, ilaahay mooyaane cid kale in bisinka lagu qabto loo qalo. mana banaana qofka muslimkii inuu wax ka cuno ama uu arrinta taa uu ku dhaqaaqo ama uu sameeyo walciyaadu bilah, arrintaasi lama ogola. nabiguna waxaa laga soo wariyey alayhi salaatu wasalaam inuu yidhi lacana allahu man dabaxa ligayri illah, ilaahay wuxuu nacdal korkiisa saaray qofkii u qalaa cidaan ilaahay subxaanahu watacaala ahayn. arrinta labaadee xaalad staylkan ku jirana waxaa weeyaan caziimadii iyo akhriskii shirkiga ahay markuu gurigiisii uu ku noqday saaxirkii uu akhris badan akhriyey oo ku saabsan waxyaalo talaasim iyo alfaad aan la maqlin ama aan la fahmayn. waxa weeyaan marka jinka loo yeerayo aan la fahmayn oo shirki sariixa ah, sida sheekh islaam ibnu taymiyah raximahullah uu intaasoo kutubtiisa ku sheegay, sida kitaabkiisa al-ibaana fi cumuum الرسالة وكشيغي. طريقة سوا طريقة دي لباد طريقة هورتي دارتي
طريقة لبادنا وطريقة الذبح أما قليتانك طريقة صدحات وحلو يقانا الطريقة السفلية والطريقة دي أما ستايل كي أما معركتي أنتي صدحات أما قيب صدحات تهوصا أما سفلية. هذه طريقة وحي ساحرينتو يقانان الطريقة السفلية يقانا ساحرينتو طانا انت بدن ساحرينتو واوين قماميتها با سميه ساحرينتاasi waxay leeyihiin dad badan oo shadaadiin oo u shaqeeya waa markiisana ka soo baxa maxaa yeelay qofka saaxirkii uu ka kufri badan yahay uu ka galbaday yahay uu ka ilxaad badan yahay wal ciyaadu billah saaxirkaasi wuxuu sameeynaya wal ciyaadu billah طريقadan sufliga wuxuu quraanku quraankiibu kaba ka dhiganaya wuxuu xiranaya musqushu ku galaya طلاسم قال لما أبو أخرية مسخوش الدحدي ذا طبعا لما وصوب حيا مخسن بو فريسنا يا مركو قال لما ذا لا يمادو شنكي بديارو ويمنيا وعوبه هي أبو شيء وي شنكي يقعد ذاليا أو سو أردية إيسدي سجايو عويان أو وضدن أي أما طريقة ولا يمد درتيد قال لما ذي سمر بعضي أي تاي قال لما حوجة وحيسكو ديان إن مد ولا عرره أو السجا أمريكا وكقاطه oo isagu arinta uu tanfiidiyo way shaydaanka walaalkood ayuu ninkaasi markaa uu noqday marka saaxirka sufliga saaxirka hoose ama dariiqadan hoose isticmaalaya waxa weeyaan kabaa'ir fara badan ayuu ninkaasi la yimid wal ciyaadu billah waxa kamid ah waxyaalaha lagu amrayo yani saaxirinta noocaas waxyaalaha isticmaalaan waxa weeyaan zinada maxaarimta isticmaalaan walaashii ama hooyadii ama inantiisii buu tagayaa liwaadka iyo waxa weeyaan waxyaalaha rag isticmaalaan xun buu sameeynaya dumarka ajnabiga uu ka zinaysanaya diintu caayaya waxyaalahaas oo dhan wuxuu u sameeynaya sidoo uu cadow sidoo baartay uu raali geliyo shaydaanka طريقة اسمها طريقة صدحات طريقة أفراد حريرك السحر كودعة لو يراجينك وحويان طريقة النجاسة وطريقة الله يقال النجاسة والعياذ بالله طريقة داسي ساحركو وحصمين إياه عليه لعين الله سورة قرآن كاملة أي وحكو قرية ديقة حيث كيكو قرية dhiiga caadada ayuu ku qorayaa ama najaas kale ayuu ku qorayaa talaasim shirkiya oo tuftufayana waa akhriyaya jinkii baa dabeetana imanaya dariiqadan uu sheegay inuu dariiqadii uu jinku ku imanayay processkii uu sameeyay saaxirku si jinku u soo hor fadhiisto dabeetana uu ku amro waxyaalaha uu doonayo inuu sameeyo arintaasi gaalnimo sariixa weeyaan suurad buu ku istiisaaya oo dhinaca kale ka qoraya ama uu si khalada u qoraya ama uu dhiigii xaydka ama dhiig kale ama najaas kale wal ciyaadu billah saxara ama wax kale uu ku qoraya wal ciyaadu billah taasi waa طريقة أفراد waxaa loo yaqaan طريقة najaasada oo lagu keenayo والعياذ بالله jinka طريقة shanaad waxa weeyaan طريقة التنكيس طريقة عكسiga ama wadadii xumayd weeyaan طريقadaas qofka saaxirkii wuxuu sameeynaya kitaabka Ilaahay qayb kamid ama suurad kamid ah tii hore wuxuu ku qoray najaas ama wax nijaas oo qarmoon ama xun ayuu ku qoray tanna wuxuu ku qoray si khalad si kale ayuu qoraya faatixadii waxa ka dambe ka soo biloobaya suurad kale ayuu dhinaca kale aakhirkeeda ka soo biloobaya ku awalkeeda ka soo bilaabay ilaha waxa uu ku dul akhriyaya jinkii baa imanaya tabataa arintii uga baahnaa ee dadku ugu yimaadeen ay weydiisteen buu sameynaya qofka caafimaadkiisa wax ka qabo oo labada isku dir labada kala fur labada isjeclaysi naagta ninkan guursanaysa ay aniga hay guursato dadna ninkiiba maaragtay madiida iyo balaayo loo sameynaya wal ciyaadu billah طريقadaas waa muharram waana shirki waana kufri afartaan soo sheeg shantaan soo sheegnay iyo mid iyo labada harayba intuu waa gaalnimo qofka binaadamka shariicada islaamka ayuu ka fogaanaya diinta Ilaahay wal ciyaadu billah oo ay ishtaru bi ayati Ilaahi ثمنا قليلا إلهي سبحانه وتعالى يعني آيات كيسي يعني وحياة رخيصة والعياذ بالله أيوسي سريع طريقة كحكتها من لحاد وطريقة لو يقانو طريقة تنجيمك أما تفالس ياشو وفالس لماذا على استعمال مفالسك لفالية وحال استعمال حدقها مد كمد أيا لإيجيا صدح جرب وقف كلها الله أو أخرية وحالي سحر كهاي طلاسمتي أنشرين أيو أخرية وشرك ميدنا oo gaaliba meedana oo Ilaahay laga fogaanayo dabadna xarakaad kaas ayaa wuxuu sameeyay arwaax baa isku soo dagaysa arwaaxdaasi cirkayka ay ka soo dagaysa sida la sheegayo taasna waa cibaado la caabudayo dayixi ama xidigti cirka taaliba la caabudaya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo shariik yeelo ayaa cibaadadii iyada loo sarfiyay ama loo weecinaya qofkiina ma oga
يعني waxaan sameynaya inuu de kuba gaaloobay ilaahay subxaanahu watacaala oo ciidan xaq u lahayn in la caabudo ayaa loo weecanaya markii halkaa gaadho shadaadiintii waxay sameynaysaa qofku marba haddii uu cibaadadii u weeciyey xaggii cirkii cibaadadii u weeciyey nujuumtii iyo wixii waxay sameynaysaa saaxirkii bay u imanayaan amarkiisii bay aqbalayaan shubeek lubeek bay odhanayaan maxaad nagu amartay saaxirku markaa wuxuu moodayaa in xidigii cirka ku jiray ee uu sujuuday ee uu balaayada u akhriyey inuu caawinayo laakiin xidigaasi arrinta waxaa laalay wuxuu ka ogyahay habeeraatee ma jirto sixirkanna cidda keentay waynu isla garanay weeyaan waxaa kale cajiiba xidigaha bari sanadkii mar kaliya soo baxaan dabeetna saaxirintu way sugaan ilaa intuu soo baxayo dabeetna waxbay akhriyayaan ay musaacad iyo gargaar ay ku weydiisanayaan siduu sixirkaa uga furfuro sixirkii waa la sameeyey sanadkii intaanu dhammaanin baa sixirkii la doonaya in la furfuro waxay aaminsan yihin sida kale lagu furfuraya sixirkaasi inay tahay in dee xidigii lala sheekaysto xidigii waxay ogyihiin sanadkii inuu mar yimaado sixirkii loo furfuro ayaa la sugayaa ilaa intii sanadku dhammaanayo waktigii imanayey najmigaasi ama dayaxa xidigaasi ayay sugayaan waxay akhriyayaan si looga furfuro qofkii xanuunsanayay ama dadkii la kala kaxiyay hadii lagu isku soo celiyo ama caafimaadkooda loo soo celiyo ayaa muddo fara badan oo uba baahnayn ba inay sugaan ayay sugayaan dariiqada laba dariiqadood kale aynoo hadhay dariiqada toddobaad waxaa loo yaqaanaa dariiqada ama staylka baabacada staylka bal dhegeysta isagana qofka saaxirkii wuxuu diyaarinayaa in yaroo dhalinyaro ah oon weli baaluqin laakiin bisharad ilmaha yaraan baaluqini inaan weyse qabin dabeetna baabacadiisa bidixda ayaa saa loo furayaa afar geesoodku waa murabac afar geesood oo isla eg afar geesood buu halkaa ku sawirayaa markuu halkaa ku sawiro dabeetana dalaasi madax buu akhriyayaa dabeetna khad madow ayuu halkaa ama khad madow ama saliid yar ayuu halkaa oo buluuya ayuu halkaa maaragtay ku shubayaa dalaasi madax buu akhriyayaa markuu waxa akhriyo ayaa waxbuu huwinayaa yarkii kursi inta lagu fadhiisiyo ayaa wax la huwinayaa طفliga marka la huwiyo toob baa la huwinayaa aan waxba ka arki karayn dabeetana meeshii de madow bay noqonaysaa qof meel madow inta la geliyey wax madowna lasuu saaray waxaasi waxay noqonaysaa طفligaasi dee waxba ma arkayo waa madow dabeetana saaxirkii baa wuxuu akhriyayaa cazaa'imtiisii iyo talaasimtii iyo waxyaalihii uu akhriyayay dee aan macno baa lahayn af jabaniis aad moodeysay buu akhriyayaa markuu taa akhriyo ilmihii baa wuxuu dareemayaa nuur dhaqdhaqaaqaya oo gacantiisa baabacdiisa bidix dhaqdhaqaaqaya dabeetna saaxirkii baa odhanaya waa halkan taagan yarkuna waxbuu u dadayey markuu nuurkii arkay buu odhanaya yarkiiba ku odhanaya maxaad aragtay kii yaraa wuxuu odhanayaa sawir nin baan arkaya saaxirkii baa ku odhanaya arrintaa ka waran ba ku dheh arrinta xagan ku helaa macanka taana waxaa saaxirintu ay u isticmaalaan sida la sheego waxa weeye waxa luma qof baa dahab ka lumay ma lacag ka lumaysaa sidaasay ku helayaan waxa weeye marka baabacadii ninkan uu arkaya buu weydiinaya uu leeyahay meeday alaabtii xaguu ninkaasi ku ilaabay xaguu ku lumiyey yaa ka xaday dabeetana wuu sheegay wuxuu leeyahay qofkaasaa xadeelkaas u yaala ama qofkaasaa qaatay ama qofkaasaa tuugo xaday inta badan waxyaalaha la xaday la waayo raggii dumarku intay saaxirka u tagaan yidhahda war waxaasa iga lumay ama laga xaday bal iisoo sheeg ciddii iga xadamay sida halkan ku ilaabay marka aan ku lumiyey sidaasay dabeetana loogu sheegayaa oo dariiqada saasaa loo isticmaalaa dariiqa shirkiya oo gaalnimo ah oo talaasim iyo waxyaalaha loo galay la akhriyayo oo la fahmayo weeyaan dariiqada ugu dambeysay sideedaad barnaamijka waqtigiisa waxbaynu haysanaa soo maaha walaalihiin waxay leeyihin ilaa 3 daqiiqood baynu haysanaa bal waynu soo koobi dariiqadii ugu dambeysay dariiqadana dhegeysteeduna waa cajiib weeyaan daawadayaal dariiqadan waxaa loo yaqaanaa dariiqada raadka dariiqadaasi waxa weeyaan qofka bini'aadanka mandiil ama tissue ama marooyinka yaryar qofka bini'aadankii uu dee isku nadiifiya ay jabada ku sito ayaa lasoo qaadayaa waxaa la keenayaa ama taas qofkii uu ku dhididay ama qofku shaar ama dee cimaamad ama wuxuu ku dhididay ama firiirada laga hoos gashado shaararka ayuu qofka bini'aadanka la imanaya lagu dhididay ayaa qofkii loo keenaya taasaa lagu isticmaalayaa dabeetana shaarka ama mandiilka ayaa la xiraya waa la cuqdadaynaya waa la xiraya marka la xidho 4 farood intay tahay baa saa loo samaynayaa dabeetana سورة التكاثر بالآخرية ألهاكم التكاثر بالآخرية أما سورة يروقابا سورة دي بآخرية جنكي وآخرية ساحركي تدقوا حيموديان ما أدي قفك شيخ وعلماء ذا أوين محايا لدي قرآن بابا آخرية سورة دا مركو دم أيو عدك سراوق هذا أيو عدك سيرنا قصا شركية طلاسمتي سي وحيالي وتفتفيي آخرية جنكي بو إياليا
wuxuu odhanayaa haddii intuu maradii sidaa u qabto ayuu odhanayaa arrinta for example qofkan xanuunka haya qof baa xanuunsanaya ilmii baa naga xanuunsanaya bal keena waaye wuxuu ku dhididay shaarkii baa loo keenay shaarkii buu sidaa odhanayaa 4 farood buu leekaysiinayaa saasuu qabanayaa suuratu takaathur ama suurad yaroo gaaban buu akhrinayaa haddana wuxuu ka daba akhrinayaa walciyaadu billah waxyaalihii sixirkii iyo balaayadii ayuu ka daba akhrinayaa markuu akhriyay buu jinkii u yeedhay wuxuu odhanayaa jinka u dhegeysta haddii xanuunkiisa uu jin yahay shaarka gaabiya dabeetana haddii ay il tahayna dheereeya haddii ay xanuunku xanuun dhakhtar yahayna intaa dhararkiisu ha noqdo kadib markii hore 4 farood bay ahayd wuu qiyaasayaa haddii 4tii farood keliya uu noqdo wuxuu ku leeyahay ninkan xanuunkiisu waa xanuun dhakhtarada geeya haddii ay arintaasi ay tahay arrin jinku ka dambeeyana 3 farood baalka uu soo shirin garoobaya uu yaraanaya 3 farood oo kaliya baalka leekaanaya haddii baalku aanu aanu jin ahayn ee uu il yahayna xabad baa ku darsamayso 4 farood marka saa leeyahay far kale ayaa xagga kale ka baxaysa waxa marka haddii uu dheeraado waxa weeyaa waa il haddii uu gaabto jinka hadduu gaabto uu 4 farood ka yaraado shaarkii waxa weeyaan jinka xanuunka ka mas'uulka ah haddii uu 4 farood loogu talagalay ka weynaado arinta il weeyaan haddii intiisa uu ahaado aanu dheeraanin aanu gaabanin midna ama shirin garoobin ama aanu ballaaraninna waxa weeyaan xanuunkaasi waa xanuun dhakhtar la taga ayaa qofka bini'aadamka la oranaya marka haddii ay dheeraato waxaa leeyahay il baa kugu dhacday xasad baa kugu dhacay hadday gaabatana waxa weeyaan jin baa ku haya haddii kalena idhab ila tabiib baa la leeyahay dhakhtar gb-gaaga tag baa la leeyahay waa ku rafeer galaya arrintan khaladaad fara badan bay leedahay waa qofka been loo sheegayo quraan dusha ka akhriyayo dadka madiina quraan u akhriyayo hoostiina balaayo shaydaanimadiisa uu ka akhriyayo jinkood musaacado la weydiisanayo oo shirki weyna jinkiyo been sheegaya muxuu ku ogyahay saaxirku inuu jinku shurun sheegayo iyo inuu been sheegayo marmar run bay ka tahay marmarna waa beentooda been bay sheegayaan dad badan baa saaxiriintu ay ku yidhaahdeen il baa ku haysa qur-aanka markii lagu akhriyana jin baa ka dhex hadlay waqtiga isagoo degdega haddana waxaan idin yar taabanayaa arrintan iyada laftirkeeda waa arrin aad iyo aad muhiim u ah arrinta ku saabsan sawiga dambe waxay beri baynu ka dhiganaa insha allah taala beri baan intaan ka hadli doonaa waxaynu insha allah beritoole ka hadli doonaa calaa qofka saaxirka ah qof baa u tagtay inuu saaxir yahay iyo inaanu saaxir ahayn maxaynu ku garanaynaa calaamaadka ku cadaynaya waxaan su-aalahan uu ku weydiiyey in qof saaxira mooyaane qof wadaad oo culamo oo sheekh inaanu ku weydiin karayn waxaa ka mid ah calaamaadkan insha allahu tacaala habeen dambe aynu ka sheekeyn doono waana muhiim calaamaadka aynu iska ogaano si aynu ogaano dadkan aynu qurqiyada u doonanayno ama aynu qur-aanka weydiisanayno inagu akhriyaan dee waxaan inay qof dad nadiifa oo saxa yihiin iyo su-aalahoodan inay yihiin su-aalihii dadka saaxiriintu ay isweydiin jireen intaan insha allahu tacala beritoole kulmayno khayr baan dhammaanteen ba ilahay idinka rajeynayaa intaan habeen dambe kulmayno waxaan ka tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh fi amaan illah caalam inaga qarsoon